اسمعي حبيبي. muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxa uu muujinayaa fanaanka Mubaarak October oo la baashaalaya fanaanada lagu magacaabo Asma Love. Mubaarak October oo dhawaan magaalada Hargeysa ku aroosay fanaanada weyn ee Farxiyo Fiska ayaa waxa ka dhashay muran xoog leh kadib markii ay reerka ay ka dhalatay. Farxiyo Fiska ay si weyn u diideen guurka ay guursatay Mubaarak October, waxaana haraysay dood ballaaran oo ku salaysnayd haybahaan meesha uu ka soo jeedo Mubaarak October iyo Farxiyo Fiski oo daahaan aad u weyn. laakiin taas bedelkeeda Farxiyo Fiski oo ka gowsadeegtay waxa ay xajisatay fanaanka da'da yar Mubaarak October kaasoo ay kula aqal gashay magaalada Hargeysa. waxaana caawa Farxiyo Fiski ay ku sugan tahay xaalad khatar ah kadib markii ay shaashadaha ka daawatay wiilkii dhalinyarada ahaa ee ay reerkeeda oo dhan uga gooday Mubaarak October oo la baashaalaya gabar dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Asma Love. muuqaalkan oo soconayay 1 daqiiqo laguna baahiyay barta TikTok iyo Facebook ayaa waxa uu ahaa mid muujinaya Mubaarak October oo si bareer ah ula baashaalaya fanaanada Asma Love, isagoo hadallo aad u macaan ku dhahaya xabadka iyo laabtana ku haya. waxaana loo xaqiijiyay inay Farxiyo Fiski markii ay daawatay fiidiyogaas ay miir beeshay, iyadoo ilaa iyo hadda xaaladeeda caafimaad ay aad u xun tahay laguna hayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa. dhacdada naxdinta leh ee ku gadaaman ayaa ah in Farxiyo Fiski ay reerkeedii oo dhan ka dooratay Mubaarak October isaguna uu caawa cidlo uga dhaqaaqay isagoo ka raacay fanaanada Asma Love. muuqaalkan ayaa waxaa si toos ah barta TikTok ugu baahisay Asma Love oo hadda la aaminsan yahay inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyo fanaanka da'da yar Mubaarak October. baraha social media waxaa caawa lagu baahinayay muuqaallo xoog leh oo ay soo duubeen dhalinyaro fara badan oo ah YouTubero iyo dhalinyaro caan ah oo si weyn uga faalloonayay jabka weyn ee soo gaaray fanaanada Farxiyo Fiski. dooda ayaa waxay ku salaysnayd in reerka ay ka dhalatay fanaanada weyn ee Farxiyo Fiski inay si cad u sheegeen inaysan waxba u qaban karin gabadhooda maadaama ay hore uga tala diiday iyada oo raacday qof aysan guur ahaan la rabin. taasi ayaana waxa ay xaalka ku sii adkeynaysaa gabadha lagu magacaabo Farxiyo Fiski. Mubaarak October oo ah nin dhalinyaro ah oo Farxiyo Fiski u raacay dhaqaalo ayaa waxa uu hadda wajahayaa fadeexad weyn oo kaga imaanaysa dhinaca social media. sidoo kale isagoo dhaawacay qalbiga gabadhii aadka u jeclayd ee reerkeeda oo dhan ka dooratay isaga. dhacdadan ayaa waxaa laga baran karaa sida khatarta leh ee ay mar walba ugu sugan yihiin xaaladada gabdhaha Soomaaliyeed ee naftooda iyo reerkooda ka doorta rag Soomaaliyeed. waxaana ka dhalan karta in si weyn loo kala tago iyadoo ay dhamaato in la isaamino. si kastaba ha ahaatee fanaanada Farxiyo Fiski waxay hadda ku sugan tahay xaalad miir la'aan ah kadib markii ay ka masayrtay ama maskaxdu wareedhay iyadoo oo aragtay wiilkii ay jeclayd oo la baashaalaya gabar aysan ka malaynayn. markii uu dhacay guurka Farxiyo Fiski iyo Mubaarak October hadaladii caan baxay waxay ahaayeen indhahayga waan ka jeclahay dambigayga Ilaahay dushahayga saaro iyo hadallo kale oo dadka Soomaaliyeed aad ula yaabeen. waxauna jacaylkoodu gaarsiisanaa meel aad u fog iyadoo aan la malaysan karin inuu soo degdego. hadda se caawa waxaa muuqata in Farxiyo Fiski ay cilla taagan tahay iyadoo xilligan xaaladeeda caafimaad ay tahay mid aad u liidata. Mubaarak October ayaa waxa uu muuqdaa nin aan ballan iyo axdi lahayn isaga oo qalbiga jabiyay fanaanadii weyneyd ee reerkeeda oo dhan iyo nolosheedii oo dhammayd ka dooratay isaga magaalada Hargeysana kula joogtay muddada ku dhow sanadka. muuqaalkan ayaa waxa uu yeeshay falcelin badan iyadoo oo siyaabo kala duwan looga falceliyay.